unasema nini? Wala socodka kale sema marada gaariga hay gaariga lagu qabto balka ani soo laba saacadood tahay aan ku maagane bas labo waxa ma tan gaarada waa Si angalia bado wataka huko sio Dewa sijui ni hawa watu nadhani hii haruki hata ndio kukufa. Kwa majina mimi naitwa Keremi Mbaka, nafanya kazi na shirika la Kenya Wildlife Service na mimi nasimamia masuala ya wanyama hapa katika Wajir County. Mimi ndasema mambo mawili matatu kuhusu mambo ya kisa cha jana cha juzi usiku, wakati kuna wawindaji wameshikwa na nyama ya twiga na pia na magari yenye inafanyanga hiyo kazi imekuwa ikifanya kazi ya windaji. Juzi usiku tumeshika na confirm ya kwamba tumeshika wawindaji watatu ambao ni notorious area ya Wajir South wenye wamekuwa wakifanya mambo ya windaji. Au watu watatu, moja ni former AP mwenye alifutwa kazi na yeye ndio mastermind ya wawindaji katika Wajir South, na pia kuna one local ya Wajir South na one Somali national, hawa ndio walishikwa. Walishikwa wakifanya mambo ya windaji na wakashikwa na nyama ya twiga kiasi ya twiga 2 na wakaweza kuletwa hapa. Kufikia jana jioni ndio hiyo operation ilikuwa completed wakati wameletwa hapa, na wakati wameletwa hapa tumembook hawa katika Wajir Police Station, na siku ya leo tumeshinda kuandikisha statements ya wale watu wenye waliwashika, so that file ifunguliwe by tomorrow morning, hii watu wapelekwe kotini waweze kustakiwa. Sitasahau kushukuru wale mashirika yenye imetusaidia sana katika kushika hii watu. Hii ni watu ambaye tumekuwa tukitrack kwa muda wa miezi karibu 3, na yale mashirika yametusaidia kuungana na hawa kushika hii watu. Ni watu ya Sipu ya huko Wajir South, ni watu ya Sabuli Wildlife Conservancy wametusaidia pia kushika hii watu, na pia kuna watu ya National Police Service ndio wametusaidia kuungana na sisi KWS kuweza kushika hii watu. Sitaongea mambo mengi, nitasema ya kwamba windaji iko kwa sababu hata hapo mbeleni tumeshika watu wengi in relation to poaching na tumeweka hawa kotini. Watu wana hawa wawindaji, kuna gang nyingine we are still tracking, na hiyo gang I'm very certain ya kwamba hivi karibuni tutaweza kushika hiyo gang na kuwaweka ndani kama hawa wengine. Magacayga waa Sharmarke, waxaan ahay chairmanka Sabuli Wildlife Conservancy oo Sabuli ku taala. Waxaan ahay honorary warden in Wajir. Waxaan ahay chairmanka Northeastern Conservancies Association. Wasbahaysi mise yani dawladda qayb kamida ka tirsan conservanciyada Northeastern ku yaala chairmankeeda yana ay Garissa Wajir iyo Mandera. Waxa weeye maanta shalay waxa la soo qabtay 3 nin oo macnaha gari dawladda ku daba jirtay si noo sheegeen in muddo ah ilaa 5 6 7 bilood meelahaas ay daba socotay. nimankan gari baa lagu soo qabtay 2 gaari ayagoo tuulo la yiraahdo Dabley ku taala Wajir South maraya oo si contraband ahaan wadooyin Catline iyo wadooyin adiga shortcut isticmaalaya. Dabley waxay ka tirsan tahay degmada Biimadow
Wajir South marka halkaasaa laga soo qabtay adigoo xabadaha la isku idaarsaday sida noo sheegeen askarta ciidamada soo qabatay ciidamada marka nabad sugidda halkaa ku sugan yaa gacanta ku soo dhigtay nimankaas geri aan aaminsanahay yacni markaa la soo dilay mise habeenka ayada ah yaa lagu soo qabtay marka gawaadhi kalena way ka baxsadeen haddana way ku daba jiraan bay leeyihiin waynana soo qaban doonaan siday noo sheegeen marka annagu dadka yacni duurjoogta iyo daneeyaan nahay arrintaa runtii arrin aan aada uga murugoonnay weeye sababtoo ah dad geri dilaya wakhtigan la joogo oo hilibkan sidan loo sheegay dhobley baa loo waday soomaaliya loo waday beec buuna ka joogaa waxaana loogu talagalay waxaa weeye waa waxun dadkan markii u horreysayba sonkor bay keenaan kontraband ahaan bay ku keenaan kontrabandka markay sonkorta ku keenaan sii noqodkooda way waxay qaadayaan gerigan arrintan arrin ummadda dhibtay bay noqotay gerigan dilitaankiisii waxaana aada oga xunnahay dad wakhtigan la joogo sharciyadan Kenya ayagoo ogsoon ugaartan iyo duurjoogtan iyo ilaalinaysa sharciyada inay u soo badheeraan geri inay qashaan inay dilaan weliba business ka sameeyaan gaajo kale uma geynin edeb darraa u geysay gerigan laftigiisa anagu nagu abtirsadaa Somali giraffe baa la yidhahdaa reticulated Somali giraffe adduunka oo dhanba inta meelaha joogto wajeer baa ugu badan adduunka meesha hadda joogo marka inay dilaan sagaaro ay dilaan ay dilaan waa nasiib darro ummadihii yani anaga naga horreeyey yaa dhaqankeennii suubanaa iyo diinteennii iyo ku soo gaarsiiyeen xoolahan maanta ilaahay baa noo sahlay xoolahan geri anaga carruurteena inay halkan boodkeena ay ku arki karaan meel waliba in Wajir County gerigan dhaqan baa halkan lagu keenay marka waxaan ka codsanaynaa shacabka iyo dowladdaba informationkii ay dowladda siinayeen inay sii wadaan dowladdana inay tallaabooyinka xalay ay qaadeen oo kale mid la mida inay qaadaan ugaartan meesha duurjoogta la ilaaliyo sababtoo ah meelaha qaar duurjoogtan resource bay u tahay aniga weli ma fahansanin abaar baan haysa ilaahay abaarta naga qaado ugaartan abaarta way saamaysaa biyo-la'aantan baa saamaysa wax walibaa saameeya laakiin roobka iyo barwaaqada xitaa aan helno ilaahay naxariistiisa waxaan ku helnaa ugaartan anagana la joogto waad ogsoontihiin meelba meeshay ka ugaar badan tahay iyo ka roob fiican tahay iyo ka dhir badan tahay iyo ka sii fiican tahay marka ugaartan soomaalida shacabkeenna suuban waxaan u sheegaynaa ugaartan ha la ilaaliyo dowladdana waxaan u sheegaynaa inay tallaabooyin qaadaan inay dhallinyaradan shaqala'aanta meelaha jooga inay shaqo qoraan ayagaa waxaan ilaalin lahaa ayagaa ugaartan ilaalin lahaa ayagaa meeshan securitygeeda iyo amnigeedaba ilaalin lahaa shaqo la'aan waxay u yihiin way waxa hadda yacni ugu qaadayaan maxaa la yidhaahdaa gerigan iyo waxaan loo dilaya oo Soomaaliya loo geenaya marka dowladda waxaan leenahay resource fiican ha la geliyo KWS ha la geliyo community conservancies ha la geliyo yacni idaaradahan kala duwan oo loo baahan yahay waxaan inay ilaaliyaan ha la geliyo shacabkan shaqo la'aanta ah ha la geliyo resources county governmentka waan ka codsanaynaa waynana taageertay taageero weynna waan ka rajaynaynaa waxaana mas-uuliyad weyn baa ka saaran inay ugaartan qayb libaax ay ka qaadato marka shacabkana waxaan leenahay idinkana mas-uuliyaddeeda ka saaran waxaa weye waad ogtihiin waxaa ka dhacaya meelaha hadda ugaarta lagu dila waa la ogyahay dadka ka shaqaysta xabad xabad baa la ogyahay nimanka dowladda waxay ku daba jirtay 6-7 bilood yaa la fiirsanayay abaqorre meesha hadda lagu dilo way ku jirtaa haarri way ku jirtaa meelahan la helay wajeertan laftigeeda waa laga warhayaa qorof xaraar waa laga warhayaa ceeldaas inta ka sokaysa waa la ogyahay butte iyo ceelnuur butte iyo bunna dadka ka ugaarsada waa la garan in Wajir County marka waxaan ka codsanaynaa communityga informationka dowladda u soo sheega waxaan loo sheegay yani inta hadda informationka loo sheegay waxay isugu jiraan dadkii gerigan dilaya horta dadkan geriga gacan laguma dili karo oo mise masaar iyo bangad iyo laguma dila qoryaa lagu dilaa macnaheedu maxaa weeye qoryahan dhulkaas ay yaalaan dad baa la imaada xabad baa lagu dilaa xabaddana sidan loo sheegay nimankan hadda lasoo qabtay keligood ma ahee ciidamada Soomaaliya oo rogue officers la yidhaahdo yacni ciidamo baxsada yaa ku jira yaa loo sheegay kuwii baxsaday iyo kuwa hadda la hayaba
qaarkood ciidamo Soomaaliya oo dowladda Soomaaliya TFG ka tirsan yaa ku jira sida hadda loo sheegay dadkan gariga dilaya suuq baaba ka furan ba Soomaaliya oo garigan yani hilibkiisa xagga lagu geeyo sonkor bay keenaan sonkortaas ciidamaha yani la socda garigi baa la dili waa si noqodkii marka hilibkiisa la qaadaya dhaqaale ahaan yani kala wareejis waxaan lagu yiri ilaa 200 ilaa 300 oo kun iyo halkii gariga lagu kala wareejisan kiilana hadduu noqdo yani waa 1500 iyo 1800 iyo 900 intuu dhaxaysa way kiilihi waa nasiib darro way dadka waxay aaminsan yihiin waxa meesha ku jirin foodkiisa daawa hilibkiisa daawa oo been ah waxba ka jirin war corona yani waa la idin sheegay daawooyin iyo qadarta ilaahay uma ka celin karaysa marka wax hilib gari hadda loo laaya anaga ma garanayna mise hilib sagaara mise hilib maxaa la yiraahdaa lagu daaweyn karo male marka ilaahay laga cabsado garigan faraha laga qaado ugaartan duurjoogtan masaakiinta faraha laga qaado community-na waxaan leenahay war xoolihiina ilaashada ugaartiina xoolaha lo'da iyo gari lo'da iyo geela kaliya ma ahayo ariga garigan xagee ka imaadeen waan dhaxalnay awoowayaasheen iyo dadkii naga horreeyay yaa soo dhaqi jiray waad garanaysaan Soomaali dhaqan baan leenahay gariga waxaan dhahnaa maxaa la yiraahdaa qofka waagii hore markuu dilin jiray waa la tagoori jiray Soomaa waa la tagoori jiray qofka hilibka yani ugaarta mise duurjoogta cuna war midgaan iyo magacyo loo bixin jiray marka midgaannimadii ba hadda soo noqotay ilaahay laga cabsado garigana faraha laga qaado